السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزكريا عيسى حرباوي maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo major currency iyo minor currency lacagaha ah iyo maxay kala yihiin inaan intaas soo gudbiyaan rabaa insha Allah. Major currency-ga lacagaha major currency-ga lacagaha caadiyan waa 8 USD, Euro, Pound, Canadian, Japan, Switzerland, Australia, New Zealand. sideedaas lacag baan la trade gareeyaa mostly. Intaas kadib lacagaha majorka marka intaan bay soo hoosgelayaan ayagaba un baa la isku badbedeli doonaa. Kuwa kale waa ay jiraan laakiin inta ugu mostly ama ugu caansan oo badanaa la sameeyo majorka iyo minorka oo ka faracmadaan waa intaan. So major currency iyo minor currency-ga marka haddii aan ugu dhigno waxaad aragtaa major currency pairs oo ah pairs waxaa waa markii laba isku raacsan yihiin minor currency-ga. Major currency-ga haddii aan fiirno lacagaha muhiimka ah waxaa weeyaan Euro USD number 1, number 2 US dollar, Japanese yen oo ah USD JPY, waxaad aragtaa JBP USD oo ah British pound. Lacagtii short oo la soo gaabiyey iyo iyadoo muxuu ahaay faahfaahsan wixii laga soo gaabiyey ah USD Swiss franc, USD CAD, USD Canadian, Australian dollar to US dollar, New Zealand dollar to US dollar. So waxaad aragtaa major currency-ga waa 7 maadaama uu 7 yahay inta ka haray oo dhan waa minor. lacagihii aan hore usoo sheegnay oo ahayd 8 USD dollar markii laga reebo intaan kale oo ayagoo laisku beddelay baa minor noqon doona insha Allah. waxaa ka mid ah 6 ka mid baan soo qaatay hadda Euro JBP oo ah Euro British Pound, Euro Australian dollar, Pound JPY British Pound Japanese yen, Swiss franc Japanese yen, New Zealand dollar to Japanese yen, waxaa kaloo ka mid ah British Pound Canadian dollar. So waxaad arki doontaa lacagahan majorka markii la dhahayo waa lacago quwad leh oo muhiimadda la saarayo suuqa la saaro dadka trade-ka sameeya iyo bangiyadaba ay sameeyaan muxuu ahay institutionka private-ka ah. kuwan markii laga soo tago kuwan kalena waxaa weeyaan ayagana xoogga waa la saaraa. sidaas darteed marka different pips bay kala dhaqaaqaan ayaga lacaga maalintii oo kala duwan bay dhaqaaqaan ama sintiyaal kala duwan bay dhaqaaqaan kuwaasoo looga faa'iidaysto inay kor aadaan ama hoos aadaan baa looga faa'iidaystaa. So waxaan kusoo bandhigi doonaa the next video insha allahu tacaala aan kasoo duubi doono. waxaa ka mid ah major currency-gii waa kuwana 7 weeyaan wadamada ay kala yihiin markii si fiican aad u aragto Eurozone United States Japan waa USD JPY, United Kingdom United States isku bedelay United States iyo Switzerland lacagti marka inta markay tahay United States Canada Australia United States New Zealand United States. So waxaa loo yaqaanaa lagu dhawaaqa Euro dollar yen oo USD JPY ah, Pound dollar Swissi, dollar luni waa shimbir oo booloboolada camal ah oo biyaha ku dhex socota baa la dhahaa. waxaa kaloo jira OC dollar baa loogu dhawaaqa ama loo yaqaanaa, Kiwi dollar baa loo yaqaanaa, New Zealand dollar ama New Zealand USD. haddaan ku tusiyo qadiina Soomaaliga sida lagu yiraahdo sawirkan kale waa Kiwi waa lacagta New Zealand sida loo yaqaano waa shimbir muxuu ahaay baalal iyo wax ma lahan waa tana duftaanay leedahay waxaana aragtaa af dheer inay leedahay. So marka midaana loo yaqaanaa Kiwi. Major currency iyo minor currency-ga marka sidaas bay muhiim u yihiin qofka muhiim bay u tahay forex markii la joogo xaggiisa. markii forex aad joogto ama trader aad tahay waa muhiim waa inaad taqaanaa
major currency iyo minor currency farqiga u dhexeeyo iyo waxay kala yihiin iyo lacagaha ay kala yihiin intaas haddii aad taqaano waxaa kuu fududaanayso tradeka aad furi doonto wuxuu yahay iyo suuqa sida uu muxuu ahay major muu ka yahay mise minor marka intaas baan kusoo gebgabeynaya videogeyga waad ku mahadsan tahay daawashada videogan subscribe like share and comment muxuu ahay wixii su-aal aad u baahan tahayna waxaan kugu reebi doonaa descriptionka bilowga hoos ah baan kugu reebi doonaa gmailka insha allahu tacaala waadna ku mahadsantahay asalaamu calaykum